Ruushka iyo Jaynaha ayaa iyagoo adeegsanaya codka qayaxan ee Vita Power ku hor istaagay qaraar uu Golaha Ammaanka kaga hadlayay marinka Hormuz oo uu soo bandhigay madaxweynaha golaha oo haatan ay hayso dalka Bahrain. Qaraarka ayaa sheegayay dhiirigelin xooggan oo difaac, dadaallo iskaashi iyo ammaan looga dhigayo marinka Hormuz. Ilaa 11 dal ayaa u codeeyay inay u riyaaqsan yihiin qaraarka, halka 2 dal ay dhexdhexaad ka noqdeen, waa Pakistan iyo Colombia. Toddobaadyo wadaxaajoodyo ah ayaa qabiyo qoraalku uu dhigayay bilowgii in la raaco chapter-ka P2 oo oggolaanaya isticmaalka awood militari. Hase ahaatee, awoodsiinta dowladaha inay adeegsadaan dhammaan lagama maarmaanada difaac si loo dhammaystiro dhiirigelinta adkeynta dadaallada difaac. Wasiirka Amuraha Dibadda ee Bahrain, Dr. Cabdulfataax bin Rashiid Al Sayani, ayaa shir gudoomiyay kulanka. Isagoo hadlayay ka hor codbixinta, waxa uu sheegay xubnaha golaha in qabiyo qoraalkan uusan abuurin xaqiiqo cusub, laakiin ay tahay jawaab adag oo lagu dhisayo cadowga dhaqanka joogtada ah ee Iran in la joojiyo. Wuxuu sheegay haddii uu goluhu ku guuldareysto ka jawaabidda hubeynta dagaal ee marinka biyaha, maamulkeeda uu ku keenayo cawaaqib caalamka, ayna waddadaasi raacayaan marino biyoodyo, taasoo u beddelaysa caalamka goob duurjoog ah.